السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرم وعن أو ونكسن داوديال كسر وهذا قضبضة وركينا وين أو هالكن آن إذن كسر جود بين دونو dowladda Itoobiya oo shaacisay khasaarihii ka dhashay goobihii shalay ee duqeeyeen TPLF oo soo bandhigtay saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya oo ay ku soo qabqabteen dagaaladii u dambeeyay xaaladda dalka Suudaan oo maanta kacsan ra'iisul wasaarihii oo xabsi guri la dhigay iyo waliba saraakiisha ugu sarsaraysa dalka Suudaan oo iyaga laftooda xabsiga loo taxaabay Mareykanka oo arrimahaasi ka hadlay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ka hadashay khasaarihii shalay ka dhashay goobihii ay duqeeyeen. dowladda ayaa waxa ay sheegtay goobihii shalay ay duqeeyeen in ay ahaayeen magaalada Adwa, goobaha inta badan lagu tababarayay ciidamada TDF-ta iyo waliba goobo ay ku hagaajisanayeen qalab military. afhayeen u hadlay ciidamada cirka dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in khasaarihii shalay ka dhashay goobahaasi ay ahaayeen kuwa aad u badan oo ay la eegteen goobaha la sheegay in lagu keediyo hubka iyo waliba in goobahaasi lagu hagaajinayay hub casri ah kaasi oo la doonayay in lagula dagaalo ama lagu baabiyo ciidanka dowladda. waxa kale oo uu xusay in goobtaasi ay ahayd goob warshada halkaasi oo inta badan lagu soo saarayay dharka ciidanka militariga ee dalka Itoobiya oo isticmaalo kuwaasi oo la doonayay in lagu marin habaabiyo dadka shacabka. balse dhanka kale TDF-ta ayaa waxa ay sheegeen in goobahaasi ay ahaayeen isbitaallo iyo waliba goobo dadweyne halkaasina aysan jirin wax ciidan oo ku sugnaa oo la beegsaday balse khasaaraha uu soo gaaray dad rayid ah. TPLF ayaa waxa ay soo bandhigtay saraakiil ay sheegtay inay kusoo qabqabteen dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday dalka Itoobiya waliba Agadizay. taliye lagu magacaabo ama taliyihii hogaaminayay guutada 91 ee ciidanka Itoobiya Colonel Tadesse Taye Bakayle ayaa kamid ahaa saraakiisha la horkeenay warbaahinta. sargaalkani ayaa inta badan waxaa lagu xasuustaa in uu kamid ahaa saraakiishii Axmaarada ee inta badan ka howlgalayay gobolka Axmaarada halkaasina dagaal baan kula jiray ciidamada TDF-ta. waxa kale oo ay soo bandhigeen ciidan kale oo fara badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidan ka tirsan ama ka tirsanaa dowladda federaalka Itoobiya militarigiisa iyo ciidamada huwanta ee garbinaya. balse markii laga soo tago sarkaalkan ay soo bandhigeen ciidamada kale ayaa waxaan la hubin inay xaqiiqo tahay in loo soo geliyay dharka militariga ciidanka Itoobiya iyo in kale. balse ma ahan markii ugu horeysay oo TDF-ta ay soo bandhigeen ciidamada ay ku sheegeen inay ka qabqabteen dowladda federaalka Itoobiya. dagaalo xoogan ayaa maalmahani la isku mari la'yahay Agadizay iyo Kombolcha iyadoo inta badan halka goobaha la isku dagaalayo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan inta badanna labada dhinac ay guulo kala sheeganayaan. balse ilaa ay hadda ciidamada TDF-ta ma aysan sameynin wax horumar ah oo ku saabsan inay la wareegaan goobihii ay maalmihii la soo dhaafay sida aan caadi ahayn ay dagaalka ugu wadeen ciidamo gurmad oo badanna ay u keensanayeen. ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa arkaysa in ay goobahaasi isku ballaarinayaan ayna doonayaan inay horay uga ruqaansadaan goobihii markii hore ay ku sugnaayeen. balse khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaan la soo koobi karin iyada oo aysan jirin ilo xog ogaal ah oo halkaasi ku sugan oo xaqiiqada soo gudbin karto. balse inta badani labada dhinac ayaa mid kasta waxa uu soo gudbinayaa wixii isaga dhankiisa ku saabsan. haddii aynu aadno dhankaas iyo Suudaan maanta waxaa dalka Suudaan ka cusub xiisada taasi oo ka dhalatay saraakiil la xirxiray kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen afgambigii dhicisoobay bishii hore.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdalle Xamduuk ayaa maanta xabsi guri laga dhigay iyada oo xabsiga loo taxaabay saraakiil sarsare. militariga dalkaasi ayaa maanta la wareegay dalka Suudaan iyaga oo waliba saraakiisha ugu sarsareysay dalkaasi xabsiga dhigay. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka hadashay arrimahani iyaga oo yiri xiisada ka taagan dalka Suudaan waan ka xunnahay, dal Urdun ah oo hadda soo kacay ayuu ahaa, balse in maanta dowladii Urdunka ahayd ee halkaasi ka soo curanaysay la afgambiyo ma ahan mid la aqbali karo. inta badan beesha caalamka ayaa aad uga murugsan arrimahani ku saabsan dalka Suudaan iyo waliba ra-iisul wasaaraha xabsi guriga laga dhigay. tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddada dheer xukumayay Cumar Xasan al-Bashir ayaa dalkaasi wali waxa uu ka dhamaan layahay qalalaase siyaasadeed. Cumar Xasan al-Bashir ayaa ilaa hadda xukun sugi isaga oo ku jiro xabsi ilaa haddana ma jirto wax maxkamad oo la hor keenay markii laga tago maxkamad macmal oo dadka lagu qancinayay. haddii aynu eegno dhankaas iyo Soomaaliya, Gurceel waxaa maalmahani ka socday dagaal kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda, kuwa Galmudug iyo waliba ahlu sunna. waxaa saaka rasaas goos laga maqlayaa aaga jaamacadda ee degmada Gurceel, halkaasi oo saacadihii la soo dhaafay ay si weyn ugu dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug oo dhinaca iyo xogaga ahlu sunna. dadka ku sugan Gurceel ayaa risaala u waramay iyaga oo labada dhinac ay kala joogaan goobihii ay ku dagaalamayeen, waxaana dagaalkii ugu dambeeyay ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac ay dirirtu ay ka dhaxaysay. dhinacyada ayaa saacadihii la soo dhaafay kala helay gurmadyo kala duwan, waxaana maalintii saddexaad oo xiriir cakiran isku socodka dadka iyo waliba in degmada Gurceel amnigeeda goob ama dhinac ay u dhacdo. mana ahan markii ugu horeysay oo magaalada Gurceel sidan oo kale loogu dagaalo ama ay ugu dagaalaan ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa. daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii daliyay dibadda inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. intaan warkan mid ka xukumin hadii ay baydno nabadgelyo.